ولا الصغير يوم تناد بيبي سلام يلا مدينة ودمان aad baan u dhowahay DJ qarniga walaal ma fiican haysatiin wala fiican yahay walaalo annagu waanu ku fiicnay Cabdiqaniyo sharaf bay tahay saaxiib inaad iga aqbashay adiga ambassador Ali Sharif Ahmed Naima Choker Imam Abdul Ahad dhamaantiin bootani sharaf bay tahay naga dabagay xaaladda hota Istanbul iyo Turkey iyo COVID-19 xagaa isla maraysan wallahi COVID-19 de waxa weey pandemic baa lagu wadi jiraa un bandooga karantiinkaas maan ka wada midnahay كل اليوروب أردن يدي قربه أردن واسكسي ده هالكي ودن كم بانفيلا يعني حاجة activity يرتجرو لكن وحول بحالكم وكارنتين حتى عيد مال هنا نجح سويرو ها تسورة وحرب عبدالقني والله أن ما شاء الله the good traders and meel kasta hadda ku qorantay the headlines everywhere and waxaan leeyahay horta hambal iyo guusha gaadheen adiga iyo dhammaan dhalinyarada kugu xidhan imise magaalo ayaa horta hadda aad operate garaysaan hadda inta uu jiro cudurkan COVID-19 ama bilihii u dambeeyay xoogaa waa yar hakinay expanding-kii ama extension-kii waxaan rangaraynaa waddanka dhexdiisa laba qaybood oo jira hadda saddex isku bedelay boosaaso hargeysa muqdisho oo waddanka dhexdiisa ka shaqeeya sidoo kale UK iyo London ah Istanbul oo mainkii ah oo xaggan ah so I think waa xaweey ilaa 4 bay ma hadda waxay marayaan 5 bay marayaan ma sha Allah wallahi oo imisa sanani asaasneed godad shirkadu asalaan shirkad ahaan waxay istaagtay June marka 2019 caadi u istaagtay laakiin dhisideedii hore xooga ka horeeyay iyo historygeedii hore waxaan rabay dadka aan garanayn aniga mataan oo kale forex iyo online trading hota ma naga daba geen kartaa in yaroo briefing ah maxay tahay si fiican online trading waxa weeye subeero hadii aan macnaaya ama aan isku dayna sharaxo waxaan aan iibsan jirnay ama ganacsiga aan naqaanay quality-ga ama quantity-ga haye wax la soo qabsan jiray oo waxa weeye algorithm ah ama waxa loo yaqaano digits oo satellites so by computer inaad ku ganacsanayso oo kale online trading you buy and you sell stocks waxa loo yaqaano mobile-kan oo kale hadda haystaan iibinayo oo kale waxaan ku iibinayaa by internet marka macnaha shirkadiisii oo kale ayaan platformkii shirkadu lahayd aan wax gashanaya on macnaha dib u iibinaya oo waana la invest gareeyaa of course all invest gareeyaa anagu waxaan qabano waa inaan anagu invest gareeyno marketiska oo macnaha anagu dib u iibino ama aan soo iibsano halka uu suuqu mar walba uu ka yahay week aan ka faa'iideysano interest-ku halka ku jiro sidee hadda inii saameysay ilaa hadda waan ogahay hadda shirkadaha adduunka oo dhan waa few shirkado ayaa ka badbaaday dee COVID-19 dhaqaale ahaan haddii loo eego say ay noqotay ama say tahay runtii horta cudurkani waa cudur macnaha saameyn badan iyo adduunka oo dhan aad u saameeyay dhaqaalahana waxa ugu sii darnaato dhaqaaluhu waa meesha ugu badan uu saameeyay adduunka sababtoo ah saameynta ugu badan ee hadda yeelan karo waxa kamid ah anagu waxyaabaha la qabsanay inaanu ka ganacsano ama aanu invest gareyno usually hadda kama ganacsan karno waa inaan raadinaa market isku halkay maanta ka culus yihiin for example hadda waxaan anagu sameyn karnaa waa inaan for the long term maxaan idhahdaa aan invest gareyno wax sida Delta Airlines ama airlines oo kale Mareykanka ka jiro oo kale ama waxyaabaha hadda joogo oo dhulka tagay oo dhan inaan hadda xoogaa sii invest gareyno markay bilaabmaan aanu ma aragteenay price-kii hore uu marketku ku soo noqdo taasina ay big profit ama ay noqon doonto big hit anaga noo noqon doonto surviving-kan ku jirna waxyaabahaas ka mid ah subeero inaan meesha uu weak yahay aan kaga badbaadno oo laga faa'iideysto dadka maaragtay education u qaata online courses u gala ama raba inay lacag ka faa'iidaan oo maxaa iyagana oran lahayd oo raba inay iyagu kaligood instead of inay shirkad ay lacag ku darsadaan inay iyagii faa'iidaan iyaga waxaan leeyahay
aniga matalo kalo laba damiina ma baran karnaa si wanaagsan of course from A to Z in la bartaaban anigu marka ugu horeysa shirkadda waa asaasay in la barto academically oo Soomaalidu sida u dhan tahay way jeceshahay waxyaabaha maaragtay inuu naftooda qabsatona waxa weeye waa waxyaabaha aan aniguba jecelahay igu dhaliyay fikirkan ah inaan anigu noqdo trader online trader marka waxa weeye waa very macnaha easy haddii aad ugu tala gasho waana very hard markaad dhexdiisa ku jirto suuqa laakiin waad baran kartaa anigu marka waxaan sameynayaa hadda waxa jira sessions aan bixin jiray oo hadda socdo oo under maxaa la yiraahdaa process ah oo aan hadda xitaa wado videos baan step by step from A to Z ka soo bandhigay marka taas oo kala dadka caawin karta insha Allah wayna socdaan hadda video badan baan doonaynaa hadda intan quarantine-ka lagu jiro aan ka soo faa'iideeyo insha Allah ta su'aal kale wala aan rabayna what is the risk yani maxaa risk ku jira anoo kala hadda $10,000 baan haystaa ama $100,000 baan haystaa ama reality-ga $1 baan haystaa si wanaagsan what is the risk maanta lacagteedaan qaatay godaad horta ka saaray ama shirkad kale oo traders riskigu waa waxa ugu horeeya inaad qaabisho horta ay la mid tahay as a trader anaga ahaan waana nagu dhacaa maalin walba iyo dee mar walba aan traderka ku jirno but it's not about the risk it's about managing your maxaan ku rahdaa assets lacagtaada inaad manage garayso for example if you have 10,000 sida aad hadda ii sheegtay ani just waxaan invest garayn karaa un waxa laga yaabaa 1,000 ka mid ah ama lacag aan afford garayn karo inaan lose gareeyo ayaan ku bilaabayaa for example 500 si aan chanceski hadhow toola riskigaan uga kaban lahaa ay u bataan معني $10,000 baan kugu shubtay yani I have to risk 10,000 ama as a trader horta anigu policy ahaan policyga ku shaqeeyo uu ka duway laakiin adigu haddaad adigu ganacsanayso nacam ha okay adigu haddaad ganacsanayso you definitely waa inaad maaragtay money management yeelataa si ay khasaaraha aad uga kaban karto sidaan anaguba samayno cause ma wada gelin karno qofna ma haysto birsiu lacagtiisa oo keliya mar keliya wada invest gareeyo so I do management hadda maxaad waxaan rabay su'aalahayga kale oo back to back oo cid kasta aan hobby waa maxay what is your hobby adiga oo aad jeceshahay markaana fadhiin actually waxaan aad u jeclahay reading weliba buugaagta dhinaca economic ka hadla oo aan aad buugaag badan oo macnaha qaarkood meelo badan oo macnaha private ka keeno oo special ah laakiin reading kan aad u jeclahay sports kana dhinaca basketka ayaan aad u xiiseeyaa ma iba xasaanigu anigu basketball basketball player ha marka dharar igu dishay inta kale waa iska qawle food cuntada maxaa ugu jeceshahay dadku inta badan waxay cunto Soomaali ilaa hadda ma helin cid sushi ama Thai food ama Chinese horta mid baa jirta subeero walaal waxa weeye qof dhuuban cunto ma jecla so sida caadiyan iga muuqatana waxaan ma yihi I'm not much of a food person laakiin waxaan jeclahay waxa loo yaqaano vegetables-ka kuwaasa easy ah iyo pizza haday soo dhaafto taasna waan qaatay iyo su'aasha cid kasta aan weydiiyo markaan aan wareysto waxa weeye maxaad fariin lahayd dhanka awareness-ka dhanka COVID-19 iyo dee taageerahaaga ama investorkaaga ama dadka raba inay kugu daydaan hadda intaasna iu waxaan tala soo jeedinayaa horta cudurkan Allah inaga saaro laakiin taxadir badan horta cudurku u baahan yahay dhinac walbana cidna ma yaqaan isagoo madax ma yaqaano masaakiin ma yaqaano it's easy sidoo kuugu dhacay and it's hard to deal with marka lala macaamilayo cudurkan marka waxaan horta tala ahaan soo jeedinayaa in aad looga taxadiro dhinaca dhaqaalaha noqotay dhaqaalaha waxaan soo jeedinayaa ama dadka usually waxay iga barteen aan u sheego iska ilaaliya waxyaabaha aad invest garaynaysaan
inay noqdaan waxyaabaha hadda maaragtay inay short termka loo yaqaano investmentska waxyaabaha pricekooga kor u kacayo oo dhanna waa inaad maaragtay si aad fundamentalka aad u badisaan newska ama fundamental analysiska technical analysis baa jira iyagana kuwaas oo iyagana taxadir badan u baahan so dhaqaalahaan waxaan soo jeedinayaa in la invest gareeyo kuwa hadda cudurkan inta maxaa la dhahdaa June laga gaarayo lasii invest gareeyo ha taageeraha investorka iyo namaha iyagana aan oran lahayd iyo dadka raba inay kugu daydaan oo dhalinyarada hadda laga yaabo jiraan dhalinyarada raba inay Cabdiqani levelkiisa ay gaaraan in the future iyagana maxaa oran lahayd actually waa la dhaafi karaa in la dhaafaan rabaa qof dhaafaana samaysto inaan sameeyo aan rabaa because taageerayaashayda taas macnaha aan u sameynaya qaybta investmentka risk managementska ayaan macnaha ku jirnaa dadaalo culus baan ku jirnaa surprise qurux badanna waa soo wadnaa insha allah that's beautiful waxaan ku leeyahay Ramadan Mubarak saaxiib waana Ramadan kareem rogahay in aan busy aad tahay waa mahadsan shukran adiga mudan aad baad mahadsantihiin intaad fahantay thanks for the invitation adaa mudan walaalo adaa mudan Ramadan Mubarak thank you inshallah inshallah